hay'adda caalamiga ee ARC International barnaamijkeeda Soomaaliya wuxuu bilaabmay sanadii 2011 tiyo laga fal celinayo abaarihii baahsanaa ee macluusha gaaray ee xilliga ku habsaday guud ahaan bariga Afrika. hay'addu waxay ku bilaabantay dadaalo wada jira oo ay sugeeyeen Soomaalida ku nool Minneapolis iyo madaxda sare ee hay'adda. ilaa xilliga hay'addu waxa ay dalka ka hirgelisay barnaamijyo iskugu jira kuwa bini'aadminimo, barnaamijyo degdega iyo kuwa horumarineed. hay'adda ARC waxay door lixaad ka qaadatay gurmadka abaaraha haatan socda iyadoo oo kooxaha caafimaadka ee wareega ee ARC ay dadka abaaruhu saameeyeen ugu tagayaan goobahooda una fidinayaan adeegyo caafimaad. waxa kale oo ay hay'adda ARC qaybisay raashin loogu talagalay hal bil inuu hayo in ku dhow 7,000 oo qoys iyo biyo nadiif ah oo dhan 5 milyan iyo badh litir oo biyo ah. waxa intaa dheer oo hay'adda ARC u qaybisay dadka barakacayaasha ee abaartu saameysay buskudyada, nafaqada ciyaalka iyo dumarka si degdeg ah u soo celiya, iyo weelal dadku ay biyaha ku shubtaan si loo ilaaliyo nadaafadda biyaha loo yareeyo fiditaanka cudurrada faafa ee ay dhalisay abaartu. hay'adda ARC waxa ka go'an inay gaadho dadka abaartu ay saameysay iyada oo loo marayo dariiq walba oo suuragal ah lana adeegsanayo shaqaalaha dhan 400 ee ka shaqeeya ARC Soomaaliya iyo fududeynta 5 xafiis ee ARC ay ku leedahay wadanka. waxay guddoonsadeen madaxda hay'adda ARC in aad hoos loogu dhigo kharashaadka lagu fuliyo deeqaha bani'aadminimo inta lagu jiro xaaladan gurmadka degdega ah. himilada hay'adda ARC waxa weeye in ummadda la gaarsiiyo heer ay ka mas'uul noqon karaan noloshooda iskana caabin karaan duruufaha adag ee ka yimaada nolosha. Allah ayo naga bixi